السلام عليكم dhamaan asxaabta ku xiran channelkan sheekadeena maanta waxa ay ku saabsan tahay gabar dil arxan darro u geysatay walaasheed waxay noqotay dhacdo ka yaabisay waalidkeed iyo dadkii maqlayba dilka marka ay geysatay waxay toos ula xiriirtay booliska kaalaya xira waxaan dilay walaashay sheekada intaan guda galin fadlan nagu soo biir muuqaalka like saar si meel dheer u gaaro mahadsanid Claire Miller waxay ahayd gabar 14 jir ah oo ku noolayd gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka waxay la noolayd waalidkeed waxaana la dhashay gabar walaasheed ah gabadhan aabaheed Mark Miller waa nin taajir ah oo dhaqaale wanaagsan leh nolosha qoyskiisana waa mid wanaagsan Claire iyo walaasheed ka weyn ee Helen Miller waxa uu geeyay waxbarasho wanaagsan dugsiga ay wax ka dhigtaan waa mid kamid ah iskuulada ugu qaalisan oo ay dhigtaan caruurta qoysaska dhaqaalaha haysta Mark Miller wuxuu sameeyay dadaal kasta si uu u koriyo caruurtiisa sida ugu wanaagsan si kastaba haatee marna ma filayn dhaqamada ka soo bixi kara caruurtiisa balse waa mid naxdin iyo la yaab ku reebtay aabahan dhacdada ay caruurtiisa ku kaceen Helen waxay ahayd gabar 19 jir ah oo naafo ah oo saaran gaariga curyaanka Claire iyo Helen walaalnimada ka soo waxay ahaayeen kuwa saaxiibtinimo aad ugu dheer Claire waxay daryeeli jirtay walaasheed ka weyn waxayna u raaci jirtay booqashada isbitaalka marna kama tagi jirin walaasheed xitaa marxaladaha qaar 22 Febraayo sanadka 2021 waa habeen murugo ku leh qoyska Mark waa habeenkii ay waayeen dhammaan caruurtooda Helen waxay sida caadiga ah tagtay sariirteeda habeenkaasna horay ayay u sii seexatay balse Claire iyadoo wali waa soo jeedaa waa maskaxdeeda waxa ka guuxaya qorshe aan marna laga filayn inay ku dhaqaaqdo Claire waxay aaday jikada si ay u soo qaadato mindi aad u af badan iyada oo aan labayn ayay tiro aan xad lahayn mididii ku dhufatay walaasheed waxay mindida kala dhacaysay qoorta iyo xabadka dhiigga Helen ayaa ku fiday dhammaan sariirta iyo dharka Claire waxay sameysay in barkinta iyo maryo kale ay wajiga iyo jirka intiisa kale ku daboosho si ay u qariso aabahood iyo hooyadood waxay ku jireen qolkooda mana ogeyn xaaladan iyo falka ay ku kacday Claire marka ahayd abaare koodii habeenimo waxa ay wacday oo ay la xiriirtay waaxda booliska degmada Lancaster waxay u sheegtay in walaasheed ay ku dishay mindi wax badan ay ku celcelisay ciidanka booliska ayaa durbadiiba yimid goobta faldambiyeedka uu ka dhacay Claire ayaa barnaanka istaagtay iyadoo u muuqatay inay sugaysay booliska boolisku waxay arkeen Claire oo wada dhiig ah barnaankana taagan dhiig wuxuu wada gaaray dhammaan jirkeeda iyo dharkii ay qabtay mar kale Claire ayaa u sheegtay walaashay baan tooreeyay bilowgii boolisku waxay u maleeyeen in laga yaabo inay ka naxday wax xun oo gurigooda ka dhacay ma aysan suuraysan in dambiga ay sheeganayso inay gashay kadibna waxay u tilmaamtay booliska dhanka qolka ay ku jirto walaasheed boolisku waxay xaqiijiyeen in Helen ay ku gaareen nolol durba waxa ay bilaabeen inay gargaar caafimaad u sameeyaan balse intii ay ku guda jireen la tacaalida ayay dhimatay Helen sababta ayay ku sheegeen booliska inay qabtay dhaawacyo halis ah Claire ma aysan muujin wax qoomamo ah oo ku saabsan dilka walaasheed kaliya waxa ay ku heesaysay inay dishay walaasheed waan dilay walaashay ayay ku celcelinaysay hooyada iyo aabaha ayaa qolkooda ka soo baxay xilli boolisku ku jiraan qolka Helen ayaa markii ay ogaadeen dhacdada waxaa soo foosartay murugo iyo naxdin waxay ku noqotay qaadan waa in gabadhooda Claire ay dishay walaasheed Helen booliska degmada Lancaster ayaa Claire geeyay saldhigga booliska halkaas oo lagu wareystay si ay u xaqiijiso in hadalka ay bixinayso uu yahay mid aan lahayn wax qasbid ah oo qiraalkeeda ayayna ku qoreen su'aalo weydiin kadib boolisku waxa ay xireen Claire Miller oo lagu eedeeyay dilka walaasheed maalin kadib waalidiinta ayaa aad uga xumaaday in hal gabar ay ka dhimato midii kalena maskax doorsoomid uu ku dhaco waxay sheegayaan in gabadhooda Claire aysan maskaxiyan caafimaad qabin Claire waxay isticmaali jirtay barta TikTok-ga inkastoo aysan haysan waqtiga followers badan laakiin waxa uu akoonkeeda gaaray 20,000 oo followers waxay soo gelin jirtay muuqaallo ay ciyaarayso mararka qaarna waxa ay geli jirtay muuqaallo ay ka wada muuqdaan iyada iyo walaasheed
marka ay dilka geysatay oo laga ogaaday wararka waxaa TikTok-geeda ku biiray ilaa 20,000 oo qof muddo yar kadib waxaa hawada laga saaray akoonkii ay TikTok-ga ku lahayd muuqaaladeeda waxaa dib TikTok-ga u geliyay dhalinyaro kale iyagoo ujeeddo cad aan ka lahayn su'aalo badan oo dadku isweydiinayaan lagana yaabo in aad adna isweydiinayso waa maxay sababta Claire ay u dishay walaasheed wajiyo badan ayay sheekadu yeelatay oo ku saabsan sababta ay u dishay Claire saaxiibteed ayaa laga soo xigtay in Claire badanaa uga sheekeyn jirtay dilalka iyo sida ay u dhacaan waxay sheegtay in aad ay u xiisan jirtay dilalka laakiin arrinkaasi waxaa ka hor yimid waalidkeed Claire oo iyagu wali ku dhagan in maskaxiyan gabadhooda ay u xanuunsan tahay fikrad kale ayaa qabta in Claire ay ka masayrtay walaasheed ka weyn Helen oo naafa ah Helen waxay daryeel aan xad lahayn iyo jacaylkeeda jirtay waalidiinteed waxayna markasta u fulin jireen dareenkeeda iyo rabitaankeeda waxay fikradan leedahay in Claire ay ka masayrtay kalkoolinta ay qoysku siinayaan walaasheed waana sababta ay u dishay iyadoo ku fakaraysa in jacaylka waalidka ay u soo harayso iyada oo kaliya waxaa kale oo la sheegay in Claire ay ka daashay inay si joogto ah u daryeesho walaasheed oo markasta u baahnayd caawimaad iyo ka warqabad dheeraad ah waxaana ogaatay in walaasheed aysan marnaba ka soo kabanayn xanuunkan ay la saaran tahay gaariga naafada maxay tahay ciqaabta ay la kulmi karto Claire waxaa la soo taagay maxkamad waxaana lagu soo oogay kiiska dilka darajadiisa koowaad garsoorku ma faahfaahin kiiska lamana shaacin xog ku saabsan dacwadda iyo waqtiga ay socon doonto ama ay ku eg tahay si kastaba ha ahaatee hal shay waa hubaal in gobolka Pennsylvania yahay gobol ku adag sharciyada dilka ah maxkamaddu waxa ay rumaysan tahay in qofka qof dila ay ku waajib tahay inuu muto ciqaab culus haddii uu qof dilo waxaana xukuntaa da' kasta oo dil geysta iyadoon loo kala saarin qaangaar iyo qaangaar la'aan maxkamaddu waxay si adag u taageersan tahay fikradda ah in haddii ilmuhu maskax ahaan dhammaystiran yahay geystana dil la maxkamadayn karo kiiska ayaa weli socda intaa waxaa dheer xeer ilaalintu waxay sheegtay in Claire laga yaabo in lagu xukumo dil ama xabsi daa'im haddii lagu helo dilka xukunka dilka ah waa mid qofka aan la dilayn laakiin noloshiisa uu ku dhameysan karo xabsiga halka xukunka xabsi daa'imka ah uu qabo rajo ah in maalin uun la sii dayn doono iyadoo loo adeegsanayo go'aan maxkamadeed oo loo yaqaan sii dayn sharafeed Claire hadda waa xukun suge labadaas mid ayayna xukunkeedu noqon karaa sida sharci yaqaanadu ay sheegayaan sheekada maanta waa naga intaa dabcan haddaa halkan nala soo gaartay waan kaaga mahad celinaynaa waqtiga aad u hortay nagu soo biir muuqaalkana like saar si meel sare uu u gaaro mahadsanid intaan walaal dib u wada kulmi doono nabadku waa allahna dhibna ma tuso